السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. برتني ومعجزة تيم ما أنت واحد سوق على دونا نيك عدوك وقفاش حنله إسلام مركانا قلي بوق الله يقانو جينيس ولا ريكورد صاحب بيال واحد نصيح وشمد لإيدين كعصنينا إن البرنامج كسي شرقريسان أصحابتنا لا تشوكتي وحن لنا هاي أسي شرقري أصحاب تابا سيقول نقضان أصحاب تيلا ود مهدسنتين qof kasta ilaahay ayaa abuuray waxaanu u yeelay sifo gaara iyo qaab gooniya taana waynu wada qirsannahay dhammaanteen abagaala sabeebi waa fanaanka ugu foosha xun leh fanaaninta ama dadkaba ninkan ayaa ka soo jeeda waddanka Uganda da'diisuna waa 47 abagaala sabeebi waxa uu dhalay 2 caruur oo ay u dhashay xaas hore balse hadda waxa uu guursaday xaas cusub waxaana loo dhalay cunug waxaanu hadda kadib noqonayaa aabbo dhalay 3 caruur ah haddaba arrinta yaab kale waxa ay tahay in ninkan foosha xulli uu ka mid noqday maalqabeennada waddanka Uganda waxyaabaha dhaxalsiisa lacagta inta leeg ayaa ah in uu yahay fanaan isla markaana majaajilayste ah iyadoo ay hibadiisa gaarka ahina sababtay in uu noqdo hantiile laga yaqaan waddanka Uganda oo caan ah haddaba su'aashu waxa ay tahay yaa ah qofka ugu quruxda badan leh adduunka si adigu yaad u malaynaysaa inuu yahay qofkaasi dadka oo dhamni waa ay siman yihiin waxbana ka sheegi kari mayno abuurta alle si ay doontaba ha ahaatee sida uu inoo sheegay allaheenna weyn sareeya wa tacaala ayadihiisa quraanka oo uu ku leeyahay walaqad karamna bani aadama sidoo kale isagoo ilaahay sheegaya insaanka sida uu abuuray waxa uu yiri laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim laqad haqiiqe khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim in aanu dadka ka abuurnay abuurta ugu fiican haddaba ninkan abagaala sabeebi ayaa la sheegay in uu galay buugga World Genius Recordka ee lagu aqoonsado dadka caalamka ugu layaabka badan leh haddaba ninkan waxa loo aqoonsaday sanadkii 2012 inuu yahay ninka ugu foosha xun dunida isagoo rekoorka hayay 5 sano balse waxa la yaab noqotay in tartan kale oo la qabtay 2017 uu ninkan ka qaaday tartankii foolxumada isla markaana uu sidaa ku galay buugga World Genius Record haddaba ninkan ayaa markiisii hore ahaa nin faqri ah oo ku noolaa nolol adag balse markii uu ka soo muuqday baraha bulshada iyo World Genius Record ayaa waxa uu noqday nin hantiile ah isagoo inta badan ka helay hantidiisa shawyada uu qabto marka laga soo tago foolxumadiisa ayaa ninkan wuxuu yahay heesa aad u cod macaan oo yaqaanaan dhammaan dadka Uganda ku nool ninkan ayaa adduunka caanka ah iyo waliba waddankiisa Uganda kadib markii uu qaaday koobka foolxumada isla markaana uu galay buugga Genius World Recordka haddana waxa loo dhalay cunug si kastaba ha ahaatee abagaala sabeebi ayaa ah nin isku kalsoon waayo dad badan oo noocan ah ayaa waxa ay sameeyeen markii dambe qalin ay ku sameeyeen jirkoodii kalsooni darro awgeed taana waxa ay u sameynayaan si ay qurux u raadiyaan balse quruxda ayaa ah marka laga hadlo xaqiiqada caafimaadka ilaahay uu ku siiyo iyo xubnaha oo uu ku dhamaystiro aadamaha quruxdu waxa ay ka kooban tahay maadi iyo macne ma aha kaliya qaabka ama bidhaanta quruxda waxaana ka kooban tahay quruxdu qaabo fara badan waxa ka mid ah quruxda caqliga quruxda hadalka quruxda dhaqanka iyo quruxda nadaafadda quruxda toosnaanta waxaasoo dhan waa qurux weeye haddii uu yahay qofku mid qurux badan haddana uu la yahay akhlaaqda caqliga qalbiga wanaagsan miyaa lagu tilmaami karaa qurux runtii
qof kasta oo wax garadahi wuu dareemi karayaa quruxdu in aysan ahayn mid yar ama fudud, mana aha sida maanta dhaqamada reer galbeedku ay u fasiraan quruxda oo ayna dad badani ku raacsan yihiin. quruxda haddaan isla fahanay waxaa la rabaa inaan fahanno sida loo ilaaliyo quruxda. waxaa lagu ilaaliyaa in la fahmo jidka toosan, akhlaaqda wanaagsan, nadaafadda suubanaanta. qofka waxyaalahan ka taga oo ka leexda waddada toosan lama dhihi kara qurux buu leeyahay, waayo jidka uu maray ayaa ah jid qalloocan. tusaale ahaan, waxaad arkaysaa gabar ama wiil oo surwaal jiinis si xun u jeexjeexan xidhan, waxaanu u haystaa in uu horumar gaaray. markaa quruxda saxda ihi maaha waxa ay dadku ku qeexayaan rabitaankooda ama hawadooda, ee waa wax sugan oo la ogol yahay. qof kastaa waxa uu raadiyaa wax qurux badan. qofkuunu baahani waxa uu doonayaa gabar qurux badan, laakiin aragtida dadku waa ay kala duwan yihiin. haddaba haddii aad rabto inaad ogaato quruxda saxda ah, waa inaad u noqotaa diinta xaqa ah ee islaamka ah. sida ay u aragto middaasi ayaa sax ah. sidoo kale diinta islaamkii waxa ay kuu sheegtay sida quruxdaas loo ilaalinayo oo loo xafidayo. waa inaad ka fogaataa wixii lagaa reebay adiga oo samaynaya wixii lagu amray. daawadayaal, waad mahadsantihiin daawashadiinna.